السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوات طبعا قفاض أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمري إن لقد له في الحل والحرم مال الله مشي الوارك أيام لقد له حتى هذيك كعبة الوارك وأيقو دهمنك كعبة سا ولا الله الأرض لما ديني والدنيا هذا ما حسب بصدين لو كقف أسوبنه أمري إن لقد في الحل والحرم حتى هذه أيقو كعبة كلا الله الأرض كأن لديني حتى صوتاس حيتها رباطة الجيستين يدم بيد الجلد تصل يقولوا ذاك يا سولو صاحب هذه هالكن كعصبتها هاي هالكن وتاريخ الشو قال أبو هنكوز وجود بنا مقالة قصصا حقها تاريخ ده جارهان قوة إسلامية تبى صاحب سولو قارن كسكبحي سمسكراب يو لايك أنت بقى كترابو سولو صاحب دولان كي النبي صلى الله عليه وسلم وقوق بصدق مجالة مكة مركي ومجالة السوق لي أيها وحى وصاصاري وريكتو القائمة السوداء تحصل أرنيسو كدوات طبعا قفاض أيها صوبلوح وأمري إن مال الله ماشي الوار على دافين اللي تدلو سجود صحابة وحى أولاد دار من النبي صلى الله عليه وسلم إن قفكي كل اسكو حراء عن الدلين قفكي داو عمال الله دمسترين كي عررا عن الله رعدي سنين كليه كي دقالما إن لا تقالما لكن أشخاص تاني ويكدونايين dadka ayaga awaa laga soo reebay ayaga wax naxariisa oo u furan ma ay jirto meel alla meeshii lagu arko waxa la amray in waxa weey degalka laga rido ayaa soo banoo amray sababtu maxay tahay waa dhibaato ay geysteen dadka kale dhibaato aysan geysanin ayaa dadkani si gooni u geysteen sidaa daraadeed ayaa soo banoo amray in meel alla meeshii lagu arko la toogto oo aan la deyn xataa meeshii ugu tahareed adduunka oo kacbada ayagu ka laalaada hadii la arkata aan la dhaafin hadaba yaa kamid ah dadka waxa ku jira nin la yiraahdo Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh nin la yiraahdo ayaa ku jira waxa kale ku jira nin la yiraahdo Miqas ibn Sababa waxa kamid ah عكرمة بن أبي جهل ويلكيسي أيها كجرة وحا كجرة أن اللي يراد ابن خطل وحا كلا كجرة لما أدون وأسقوا لها ونبي هي عاي جرتي بدن ayaa ku jiro mid kale la yiraahdo Habar ibn al-Aswad adigu waa ay badan yihiin qoladaas oo dhan baa Soobanu waxa uu amray inaanay ku jirin ayagu dadka la dhaafayo oo haday cararan iyo hadii waxa way dhaawacmaan baa la dhameystirin kuma jiraan ayaga meel alla meeshii lagu arko ayaa lagu dilay hadaba waa maxay dhibaatadu aanu mid u dul istaagno qoladan ayaga dhibaatada ay geysteen aanu ku bilowno ninka la yiraahdo Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dhibaatada uu geystay maxay tahay ninkani waa uu islaamay kadibna waxa uu aaday magaalada Madiina oo waa uu hijrooday halka markii uu tagayna waxa uu kamid ahaa dadka Soobanaha u qora waxyiga markuu soo dego ayaa uu qori jiray ninkan oo afka rasuulka ayaa uu ka qori jiray deedna sida ayuu ahaa kadibna diinta ayaa uu ka laabtay oo magaaladii Makka ayaa uu ku soo laabtay waa uu ridoobay ninkani hadaba dhibaatadiisu sida ay ahayd magaalada Makka markii muslimiintu ay soo galeen oo rasuulkuna amray meel kasto lagu arko in lagu dilo ninkani asaga ah meel ayuu ku dhuuntay kadibna markii shabti ay degtay ayaa waxa uu mar qora aaday ninkii la oran jiray Uthman ibn Affan oo xagga nuugmada ay walaalo ka ahaayeen oo isku hooyo ayaa nuujisay Uthman ibn Affan iyo ninkan la yiraahdo Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh sadradad ayaa Uthman ayuu magan galay Uthman ayaana u tagay waxa ku yiri Uthman wari badbaadi war maanta gacan baa ku jira waa dhiman raba inii aan kugu baxsado kadibna Uthman waa uu soo waday rasuulka ayaa uu keenay waxaan ku yiri rasuul Allah ninkan waa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh waana ninka dhigiisa baneysay rasuul Allah waa uu tooba keenay aniga ayuu magantiidii yahay ninkan ka aqbalo la baayacto dadna rasuulku waa uu ka jeestay waanu ka aamus Uthman inta kuma joogsanay mar kale ayaa uu soo wareegay oo dhankii rasuulku u jeestay ayaa uu yimid haddana wuxuu yiri rasuulka Allah Abdullah ibn Sa'd baan wadaa rasuulka Allah iska cafi waxa weeyay islaamnimada kula baayactan rasuulku mar labaad ayaa uu aamusay haddana mar saddexaad ayaa ninkii la oranayay Uthman ibn Affan uu maaratay rasuulku ku soo celiyay marka uu rasuulka Allah iska cafi anu magantiidii ninkan islaamnimada kula baayactan markii afraad ayaa Soobanuhu ka aqbalay oo islaamnimadii ayaa uu kula baayactamay waana iska cafiyay markii Uthman uu dhaqaaqay iyo ninkii Abdullah ibn Sa'd ibn Sarh ay tageen ayaa rasuulku waxa uu ku yiri saxaabadii kale war miyaanu idinku jirin aqli badan oo arkay ninka inaa saddex mar ka aamusay kadibna intuu istaago madaxiisa seefu kala jeexo dila maxaa idinkaga waay alaysa fiikum rajulun rashid nin u kaca ninkan markii uu arkay inaa saddex mar aan ka diiday nin intuu istaagay ninka dila war maxaa idinkaga waay markaas ilaa rasuulka Allah ma qalbigaaga ayaan ku jirnaa anagu maxaad noogu ishaari waysid maxaad noogu iljibin wayso ninka cuna maxaad hoos iyo iljibis noogu dhiwaysay rasuulka Allah dadna rasuulku waxa uu yiri nabi uma haboono inuu iljibis wax ku dilo ama isha wax khiyaanta inuu wax ku dilo nabi uma haboono ma kana li nabiyyin an takuna lahu kha'inatu al-a'yun ninka Abdullah ibn Abi Sarh ahaana ninkaasi sida ayaa uu ku badbaaday oo waxa weeye lama dilin waxa ku soo haray ninka la yiraahdo ibn Khattal dhibaatadaadu maxay tahay ibn Khattal waxa uu kamid ahaa dadkii islaamay ee magaalada Madiina aaday halka Madiina asagoo jooga ayaa rasuulku asaga iyo nin kale oo ansaariya waxa uu dhiibay xoolo sadaqa waxana ku waxaad u qaybinaysaan qabaa'ilka muslimiinta reer miyiga deedna ibn Khattalkani waxa uu lahaa nin adoona oo muslim ah ayaa uu lahaa deedna markii shaqadii ay u baxeen oo baadiyihii xoolihii ay aadeen ayaa meelba ay tageen kadibna markii halkaa la degay ayaa ibn Khattal adoonkiisa waxa uu ku amray inuu raashin u sameeyo neefkii heblaaya gowrac waxa uu raashin noo kari ayaa uu ku yiri adoonkiisii kadibna waa uu seexday markii uu soo kacay ayaa waxa uu arkay adoonkii ilaa hadda aan waxba qabanin markaas uu raashinkii hawasuuriiniyo waxba ma sameeynin kadibna waa uu xanaaqay adoonkii ayaa uu dilay waana qof muslima adoonkani
markii uu ninkii dilay ayaa waagi ku bariyay waxaana ogaaday haddii uu magaalada Madiina ku laabto in ninkii uu dilay loo qisaasayo sida ayaan uu diintii kaga laabtay waa urdoobay waxaana uu aaday magaalada Makka inta miyuu ku gaabsaday ibn Khaldal inta kuma gaabsane waxa uu samaystay laba hablood oo waxa weeye kuwa heesa ah kadibna waxa ay ku heesi jireen caayda muslimiinta iyo suubanaha ay ku heesi jireen waana khat as arintani inaad suubanaha caayso waa khat as meel aan la gelin way albaab aan la garaacin ayuu ninkaasi garaac ogow qof kastood caayso waad ka toobad keeni karaysaa laakiin mar haddaad suubanaha aflagaado iyo afkaagu qaab xun ugu dhaco adduunka intaad joogto waxaan dil ahayn malihi adduunka ayaan ku dhaafinayna anagu haddaad 5 milyan oo mar aad tooba keento laga yaabo aakhiradaad inay ku anfacdo adigu laakiin adduunka intaad joogto waxaad dil ahayn malihi meel alla meeshii lagu arko fil xilli wal xaram adoo kacbada saa walaalaado oo war muslimiinay war ilaahay war badbaadiyo kacbadii baan ku dhiganaane ayaan ku dilaynaa haddaad nabi maxamed aflagaadiiso adduunka imisaa shaydaani gaal dhawaan maad ayaga aflagaadiis markaad suubanahayo qofka adduunka ugu khayrka badna afkaagaad ku taagiso dabadaa wada ninkani hadkaa cas ayaa u galay labada adoon ayaa u samaystay waxa weeye waxaanay ku heesi jireen caayda nabiga iyo muslimiinta ibn Khaldal marka dhibaatadiisu arintaa ay ahayd oo dhibaatada ayaa u geystay aad u daran maalintii fatxu Makka ayaa muslimiintu waxa ay heleen asagoo kacbada ku dhigan oo kacbada ka laalaada oo magansanaya oo magangalay ka raadinayo ayaa bartaa lagu arkay waxbana umaysan tarin kacbadii oo asoo dahmankii kacbada ka laalaada ayaa madaxiisa muslimiintu seefo kala jareen sida ayaana shartiisii ay ku soo gabagabowday ninka kale ku xigo waxa la yiraahdaa Miqyas ibn Sababa ibn Sababa asagu dhibaatada u geystay maxay ahayd ninkani nin walaalkiisa loo oran jiray Hisham ibn Sababa ayaa soo islaamay magaalada Madiina markii uu soo galayay ayaa muslimiintii oo duulaan ka soo laabtay duulaanka la oran jiray qaswatu bani Mustaliq ayaa ayagoo ka soo laabtay magaalada soo galayo ayaa nin ansaari ayaa ku qaldamay idna Hisham ibn Sababa oo ninkan Miqyas ibn Sababa walaalkii ah ayaa sidaa ku dhintay oo khalad ayaa ku dhintay ninka muslimka ayaa khalad ku dilay ninka la oranayay Hisham ibn Sababa oo walaalka la ahaa ninkan rasuulku amrayo in fil xilli wal xaram lagu dilo ee Miqyas ibn Sababa Miqyas ibn Sababa waa uu yimiday magaalada Madiina ayaa soo galay rasuulka ayaa u yimid wuxuu rasuul Allah walaalkay baad disheen waliba asoo muslima oo magaaladiina soo aaday idna rasuulka arintii ayuu baaray sax ayayna noqotay waxaana uu arkay rasuulku in ninkan uu ku qaldamay ninkii ansaariga ahaa idna wuxuu walaal sax walaalka waan dilnay laakiin waan ku qaldanay sida daraaddeed diidiisii oo kaamil ah baan ku siinaya rasuulku diidi ayaa uu siiyey ninkanina diidi ayaa uu qaatay oo Miqyas ibn Sababa diidi ayaa uu qaatay walaalkii kadibna waa uu islaamay oo islaamnimo ayaa uu muujistay in muddana magaalada Madiina ayuu sidaa ku joogay hase ahaatee ninkani magaalada waxa uu joogay si uu ugu suurta gasho inuu walaalkii u aaro oo ninkii walaalkii dilay sikidiisa inuu si uu u helo ayuu magaalada u sii joogay maalmaha kamid ayuu sikidiisa wuxuu ku helay ninkii walaalkii dilay oo dagan ayaa uu helay deedna seefta ayuu ka waraabiyey ruuxii muslimka ahaa ayaa uu dilay oo walaalkii hore u dilay asagoo doonaya inuu ka aarsado waana uu dilay kadibna waa uu cararay magaalada Makka ayaana uu aaday sidaa ayaana uu ku ridoobay oo halka ayuu ku cararay rasuulkuna wuxuu amray in meel alla meeshii lagu arko in lagu dilo muslimiinta ayaana dilay oo magaalada Makka ayaa lagu arkay waana la dilay ninka la yiraahdo Miqyas ibn Sababa sidoo kale waxaa jiray ninka loo yiraahdo Habar ibn al-Aswad ayaa jiray ninkana dhibaatadiisu maxay ahayd Habar ibn al-Aswad waxa uu sameeyay dagaalkii Badr waxa ka qayb galay nin la yiraahdo Al-Aas ibn Rabi' ninkaas oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sadaq u ahaa oo gabadhii nabi Maxamed uu dhalay ee la oranayay Zaynab bint Muhammad ayaa uu qabay ninkan Al-Aas ibn Rabi' waxa lagu qabtay dagaalkii Badr mushrikiinta ayaa uu la socday mushrik ayaa u ahaa ciidankii dagaalka lagu qabtay ayaana ku jiray kadibna Zaynab oo xaaskiisii ahayd ayaa waxa ay samaysay maadaama maxaabiistii la furanayay ninkastana ehelkiisa uu furanayay waxay muslimiintu ay u baahdaan oo fidya u siinayay ayaa gabadhani waxa ay samaysay qilaada ama kuul ay lahayd Khadiijo radiyallahu anha ilaa hooyadu waa Khadiija oo Khadiija ay u hadiyeysay maalintii arooskeeda ayaa ay soo dhiibtay muslimiinta ay u soo dhiibtay si ninkeeda Al-Aas ibn Rabi' loogu furto rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii uu arkay qilaadadii ama kuushii Khadiijo uu garanayo muslimiinta waxa uu ka codsaday si codsiya in haddii ay arkaan inay la quman tahay inay qilaadadeedana ay u celiyaan gabadha waxa weeye ninkeedana ay u daayaan muslimiintina waa ay yeeleen oo sidii ayaa ay ugu daayeen laakiin Al-Aas ibn Rabi' nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka shardistay inuu gabadhiisa markii uu magaalada Makka tago oo u soo diro maadaama asagu gaal yahay gabadhuna ay muslim tahay Al-Aas ibn Rabi' ballankii ayaa uu uufiyay oo magaalada Makka markii uu tagay ayuu gabadhii diyaariyay deedna waxa uu saaray rati waana uu soo fasaxay gabadhii markii magaalada ka bixaysay ayaa ninkan la yiraahdo Habar ibn al-Aswad ayaa yimiday deedna waa uu ku xanaaqay waxaana uu waran ka dhex bixiyay hashii siday oo ay saareed gabadhii marka hashii dhulka ay ku dhacday gabadhiina waa ka soo faniintay gabadhuna uur bay lahayd waa Zaynab bint Muhammad gabadhii nabi Maxamed Zaynab uur bay lahayd hashii ay ka soo faniintay dhagax ayana ku dhacday deedna halkaas ayaa wax uga soo dhacay canugii ay caloosha ku siday oo sidaa ay gabadhii waxa way canugii uga dhicso hadaba dhibaatadaas ayaa u geystay ninkan la yiraahdo Habar ibn al-Aswad laakiin ninkan miyaa la dilay laba dilay ninkani waa u dhuuntay dibdaba ayaa uu ka islaamay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa uu cafis weydiistay rasuulkuna waa uu iska cafiyay asoo waliba dhibaatada geystay oo gabadhii nabi sallallahu alayhi wasallam saa u galay ayaa hadana rasuulka sallallahu alayhi wasallam asoo awoodo inuu dilo ayaa uu iska cafiyay waxa kale oo ku soo haray oo dadkii kamid ahaa ayana la yiri fil xilli
الحل والحرم هلقو دلو لبدي قبلود أولها ننكي كعبة لقو دلي اللي أراني ابن خطل لبدا قبلود أيانا دلكود أيا لبني لكن مد كمدا أيا للدلي مدنا وايدومتي دب أيانا رسولك صلى الله عليه وسلم لغا شفاعي وانا واسكع فيه وما أسندين رسولك لكن لبدا مد كمدا أيا دمتي ومسلمين تو أينتي أركان أي دلين waxa kamid ahaa dadkii dhiigooda hadulka laga dhigay ninkii la oranayay Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima wad garanaysan Ikrima dhibaato gooni ma uusan geysan laakiin cadaawada uu muslimiinta u qabay ayaa aad u xumaad aad ay u dareed maadaama Abu Jahl oo ahaa Abu Jahl wad garanaysan dagaalkii Badr waatii lagu dilay marka ciil uu muslimiinta u qabay daraadeed cadaawadiisa ayaa aad u dareed sida daraadeed ayaa nabigu yiri ninkaana waa in waxa weey asna fil xil wal harb lagu dilo ninkan wuxuu kamid ahaa dadkii dagaalamay يوم فتح مكة خالد بن وليد أيا كهري مد وأنا أولاد دجالمي خالد أيا كات كاذي كده من واقع عرري بدأ أيا وكوريا صدونه إنه جزيرة العرب وأنا كبحوا هالك أي حبشي ملها كلا وقفته كده من مركي بدأ حديد لمري أيا بدي أيا هرب بدن أيا يمد لأن نجحانتيسي أيا وقع شدي والله طيب عز أيا ولا واقع وري بالبادية نيجي دونته ولا أيا وحكويري مركي بدأ لسعرين هاي كواسي وحبه مجلان هل إله الصمد تجرو أيا لبريا نيهو إله أصبري أدار ربتنا بدبادنا هذيك له بدأ أيا نكون معنا مركي سويري والله ما والله تي عز مركب بدل سهريها وحالة أدق لقال وحمد تريان مه ما يوحمد تريان يا وحتري يوم مركز إله عرك جلو أيه وحتري مركز نارتي إلهي وهدادي بدبادس وحب الله قاضي إن لافته محمد أنو تقو عن إسلامه هذا إله محمد شيء أياب حقه حديبة بدل مركز لقال وحب بدبادني يبرر أنا السجع أياب بدبادني محمدنا وصحيح كده من واو الله طيب هذا عكرمة مركي وحابتي مدي أيا صباحي وحنا ويمت رسولك صلى الله عليه وسلم وحوي سدا أيان أكو إسلامي رسولكنا إسلامي سوى وقبله بل المسلمين أيا وحكير عكرمة أيا إذن من دونا أي وحوي حدي وإذن ماذا أبيه عاينة صوتها عايدة متك ميت كان العاية قفك انتهى هدي العاية متك نولهم بيدو بيساية قفك انتهى وحبا ميليس سياد ردد برسولك يري عكرمة أيا إذن من دونا وحوي أبيه يالعاية دبدا ودادتك أيا وحوي صوبنوه dhiigooda uu baneeyay maalintii fatxu Makka in badan oo kamidana waa la dilay in badan oo kamidana rasuulku dib ayaa uu ka cafiyay oo markii uu awooday inuu dilo kadib oo iska cafiyay waxa kamid ahaa Safwan ibn Umayya isna uu cararay waxa weey dib ayuu ka soo laabtay waxa magangaliya suubanaha waa qaaday ninkii la oranayo Umar ibn Wahab oo ay isku jifaahayeen oo bari Jumax isla haayeen ayaa rasuulka uu soo qaaday magangaliyo waxa weey Safwan ibn Umayya asoo badda ku rarab ayaana u yimiday wuxuu yiri waxa weey ana kaaga soo qaaday rasuulka waxa weey magangaliyo mar lagu taabanayo ee rasuulka ku laabanayo qof kasto yimaado soo tooba keenana rasuulku waa carfiyay laabo oo badda ku alaagsan sida ayuu ku soo laabtay Safwan ibn Umayya waliba wuxuu yiri kuma aaminayay maxaa عدينا إناد بين إيش يجي لمسلم باتها أصحاب محمد باتها هاي صلوا ما يابينات بين إيش يجي ثم دام تهاي أصحاب محمد سيدردد مركي وبحيز مار موهب أيا الصبنا وحققة عمامة ديسا سي وقدكتو دليل يعني مثلا بين شيئين وتصل لينك اللي هذا صفان مميز صفان وكقبل سيدا يوصل لك مركي الصبنا قوي منا وحقوي محمد أنا نفتي دي ولي وحبا تري وحرم أنا دي كاديسو أنا لا شيء إن لو كادي إلى أفر بلاد بها ستا وصبنا وكويري أو سيدا ردد دجال كي حناي مك صبنا وقاعد دون حتى وبحي وعيدك أيو راعي سواء مسلم أهين هذا وده waxa kamid ahaa dadka waxa weeye dhiigooda hadulka laga dhigay nin Abu Jahl ay walaalo ahaayeen kaasoo la oranayay Al-Harith ibn Hisham Ali ibn Abi Talib ayaa ku arkay magaalada Makka asagoo doonaya inuu dilo ayaa waxa magan gelisay Hani bint Abi Talib oo Ali walaashi ahayd waxana Ali walaashiis Hani ay u dhaxday nin reer Bani Makhzum nimankan waxay reer Bani Makhzum markii ay aragtay Ali oo bursanaya nimankan oo inuu dilo doonayo ayaa ayaga orday waxa ay galeen guriga Hani kadibna Hani ayaa magan geliyay siisay Ali waxay ku tiri Ali nimankan ana haysta waxa weeyaan ana magan geliyay sida la soco kadib waxa uu ku yiri meeshooda yaani ka dhaqaaqan ilaa rasuulku ku fariin celiyo oo rasuulka xogtoodii warkooda aan ogeysiyo Ali waa uu laabtay kadibna rasuulka ayaa warkii u sheegay kadibna rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri Hani cidii ay magan gelisay annaguna waan magan gelinayna sida ayaa nimankan ku badbaadeen dabada wada dadkii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhiigooda baneeyay oo yiri fil xilli wal haram lagu dilo sida ayaa ay kala ahaayeen oo in badan oo kamid ah ibn Khattab iyo labadiisii gabdhood oo waxa weeye caadi muslimiinta ku heesay waa la dilay ninkii Maqis ibn Sabab la oranay sidoo kale waa la dilay in badanna waa la cafiyay oo waa muslimiintu iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ay iska dhaafeen markii ay ka adkaadeen kadib sida ay maartay ay ahayd xogti ku saabsaneed waxa weeye dadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhiigooda baneeyay yawm al-fath Makka halka ay ku soo gabagaynayna muuqaalka hadii aad halkan la soo gaartay aad baan kaaga mahad celinayna daawashada muuqaalka daawatay waxaan rajaynayaa inaad qaaran ka iska bixisay oo subscribe asaartay channelka share iyo like-na ku qabatay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh